أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله. وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله. وصيام رمضان بصدق لأنال به تقوى الله. والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. أركان الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضربت وضربت جمعة وحنا إن شاء الله تعالى أن ديار قهني برنامج أندونينا نسوق بنو عن عبد الرحمن يرد لا يحفظه إن شاء الله تعالى. برنامج كاسي وحو نقونا يا shanta tii islaamka. runta dadka badankooda waxay ku mashquulaan run ahaantii waxay ku mashquulaan waxyaabo bilaa micno ah. ubadka lama baro diinta. waxaanu doonaynaa in maaragtay barnaamijyo taxano ah inaanu kasoo gudbino halkan, oonu usoo gudbino walaalaheena islaamka ah oo muslimiinta ah si ay aga faa'iidaystaan maaragtay barnaamijka diiniga ee ku saabsan diintooda inay bartaan ee caruurtooda sii baran insha allahu tacaala. runtii barnaamijkan waa barnaamij qiimo badan oo maaragtay dhinacyo badan taaban doona. marka run ahaantii caruurta tarbiyadooda waxay ku jirtaan in diinta islaamka la baro. iminka aakhiri zamaan ayaa lagu jiraa, fitan badan baa soo baxday. marka waxaa la doonayaa qofka islaamka in diintiisa la baro. marka insha allahu tacaala barnaamijkan waxaa ila daadaheenayo cabdiraxmaan yare iyo aniga oo ustaad dibaana insha allahu tacaala. cabdiraxmaan, bal adigana sidee baa hawshaan arkaan islaamka ah faahfaahin bal naga sii. waxaa dadka kula dardaarmaysaa dadka ubadka dhalay ee maaragtay ee waxyaabaha kale ku mashquulaya. cabdiraxmaan, bal adna dee naga sii barnaamijka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan barnaamijkan soo jeedinayna aniga yaa bahay halka waxaan ka sheegayaa in dunida aakhir samaan tahay oo xanuun ayaa adduunka jiro. marka waxaan u baahanay in soo gudbino tarbiyada oo ku saabsan diinteena. marka maanta barnaamijkeena maxaa markaa ku saabsan yahay? dad badan baa waxaa jira ay diintoodii wax kale kaga mashquuleen. waxaa la rabaa markaa in aad diintaas ku mashquulshay iyo tarbiyadaada qurankaaga aad ku mashquulshay. marka barnaamijkeena maanta insha allahu tacaala muxuu ku saabsan yahay cabdiraxmaan? shanta tiir islaamka. marka run ahaantii shanta tiir islaamka dadka afka ayay ka maqlaan. fikrad noocee aday fikrad dee oo dee ka dhacdhacsan ma lahan oo dee ma garanayo. dad baa waxaa la weydiiyey hadda ka hor oo kale masalan aroos reermi oo kale. aroos reermi ayaa maaragtay aroos diini ah ayaa la iskugu yimid. dadka ayaa su-aalihii wax lagu weydiinayay ayaa waxaa la weydiiyey markaa nin kamid ah, nin oday meesha jooga kamid ah, waxaa la yidhi shanta tiir islaamka waa imisaa yidhi 5 5 ayuu yidhi. wuu sheegay 5 inay tahay wuu ogyahay. maxay kala yihiin aa yidhi marka ayaa wuxuu yidhiba cali, faadumo, xasan iyo xuseen iyo nabi maxamed, 5taas weeyaan. marka ma ahan inuu qofka ma aragtay diintiisa oo dee caamo ka noqdo oo dee fahmi waayo oo baran waayo. marka bal faahfaahin naga sii shanta tiir islaamka waa imisa? marka koowaad
إنه قف إسكت كلام عن إنه إسكت صاموا أمر كاري إله يرنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنه إله يرنا يا إله صلى الله عليه وسلم رسولك إله marka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa maxay tahay marka laa macbuuda bixaqin ila allah marka insha allahu tacaala waanu fahamnay tawxiidka ayaa ugu horeeya ayaa tiri oo ah shahaadataankii waa labada shahaadatayn shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah marka rasuulka alle waa addoonkiisa ilaahay addoonkiisa weeye marka waa yahay waa tan koobaad tan labaad in sheega waa iqaamada salaad way salaada loo kaco xilli tukado oo la ooga salaada oo ma aragtay shanta salaadood la tukado haye waa in laga dhex salaam bayaan eedaanka iyo qilkaba xilligooda lagu beego salaadana oo as-salaatu calaa waqtiha ayaad ula jeedaa salaada waqtigeeda in lagu tukado oona jamaaca lagu tukado salaada markaa run ahaantii salaada faa'iidooyin badan bay leedahay qofka dee maaragtay wanaagiisa ayay horseedaysaa oo ilaahi subxaanahu wa tacaala hataa wuxuu yidhi hee wastaciinuu bisabri wassalaa markaa kaalmaysta sabarka iyo salaada laftirkeeda waa kaalmo aad kaalmaysanaysid waanu garanay marka qodobka saddexaad muxuu noqonayaa tiirka islaamka iitaa'i zakaa maxay tahay zakada iitaa'i zakaa waa maxay وأنا تتكلم فقيرين تعال إلهي وحسيني وأنا سكتة سيس وهدو إلهي أديك حولك سيدي أدنى تحسيدو سيسي إن كانوا حلوسو دو هاي بشهر رمضان أيان وسو دو سمان ومكي أوفض بدنك الزكوات كلا بحيو سمان سكوين إن لغو بيغو بشهر رمضان أو مساكين تلغو قوديو أيام في عن dadka xoololeyda laftirkooda waxaan u sheegaynaa inay xoolahooda oo gaaray maaragtay zakada gaaray zakadooda inay ka bixiyaan ilaahay ayaa u barakeenaya xoolahooda waa iitaa'u zakaa waayo qodobka afaraad waa وصوم رمضان hay وإن صوم بشهر رمضان تكالوا بشهر رمضان waxay ugu fadli badan tahay waxay kole toonka bilowda kale carabiga waa ugu fadli badan صح si fiican ducooyinka la aqbalaba shahaadinta ما شاء الله shahaadintu waa weyn ana la xirayaa oo laga faa'iideysto oo la soomaa qofka xanuunsanaya iyo qofka maaragtay musaafirka ahne waa inay dee maaragtay soo qalbeeyaan ayagana oo iminka iska afuraan oo dee iska bixaan laakiin qofka muslimka ah ee maaragtay ku waajibi soomka waa in oo soomaa oo waajibaadka dee kulley ramadaanka bisha ramadaan oo la soomaa fadaa'il badan baa ku jirto barnaamijyo kale ayaan kusoo qaadan doonaa waa tiirka islaamka ee afaraad weeyaan marka tiirka shanaad muxuu noqonayaa وحج البيت الحرام استطاع إليه السبيل وإن سوحجته حتى أودو إن سوى حجسو وحج القبطة ونهانتي عبد الرحمن سنة كان واد أركتها عذر آفأة أي عالم كإنك كبها هي أو كورونا فيروس لي لهذا ونهانتي وحابة لقبة قيا سنة كان إن حج كلا آلي وايو تاريخ الإسلام كان لما هاي ولي حج أن يسوى حجين haddii ay dhacdo run ahaantii in maaragtay sanadkan la soo xadin waayo cudurkan coronaviruska awgii runtii waa taariikhda waa mid ku cusub xajka marka qofka looga baahan yahay waa qofka xajka aadaya dadka wax haysta oo ilaahay xoolaha siiyey inay soo xajiyaan oo ma ahan inay dib u dhigtaan oo sanadba sanadka ka dambeeyay sanadka dambaanu bixina sanadka dambaan soo xajinayna inay yidhaahdaan ma aha mar walba sanadka ina maaragtay ugu horeeya hadduu awoodiisa yahay qofka waa inuu soo xajiyaa waa sidaa weeyaan marka barnaamijkeena run ahaantii intaasaan insha allahu tacaala lagu soo koobayaa barnaamijyo badan ayaa xigi doona biidni illaahi albaari aanu ka shaqayn doonaa diinta islaamka ayaanu adeegi doonaa dadka muxsiniinta ee jecel wanaagga waa inay diintooda bartaan ay ka faa'iidaystaan ay ubadkoodana ku barbaarayaan insha allahu tacaala barnaamijkan barnaamijka xigan waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
يوتيوب-kan aad daawanaysaan waa Isha Dunida Official Channel. Fadlan haddaad ka cusub tahay subscribe saara, like, share and comment. Waad mahadsantihiin.